السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن أصحابتنا ميل كستو أجوبتان إيسي والبوعد كانوا إذن سو غارايو waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada casharadayna tixnaha ahaa oo markastaan idin soo gudbin jirnay maanta waxaan idin wadaa cashar aad u muhiimsan oo idinkana wax badan aad ka fahmi doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo ayaan idin soo gudbin doonaa casharo badan ayaan hore u soo gudbinay oo aad u faa'iido badan waxaana idin soo gudbin doonaa casharo kale oo aad u muhiimsan si aad idinkana wax badan aad ugu fahantaan waxaa naga go'an mar waliba inaan idin soo gudbino casharada intooda ugu muhiimsan si aad u fahantaan isla markaana aad wax badan aad ugu garan lahaydeen ayaan waxaan qalinka u qaadanay sidaad u baran lahaydeen luqadda Ingiriiska maadaama aan ku fasireyno si af Soomaali ah anigu waxaan ahay arday oo weli ardaynimadiisa ku dhex jira isla markaana jeclaystay in asxaabtayda qaarkood oo aan fahansanayn inaan wax fahansiiyo ayaa iga go'an inaan alaabana soo gudbiyo casharo muhiim ah oo loo baahan yahay inay fahmaan casharada waxaa loo baahan yahay marka aan soo gelino in dadka ay ka faa'iideystaan isla markaana ay akhristaan sida ay u dhacayso waxyaabaha ay ka turjumayso inay fahmaan ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed waxaan jecelnahay maanta waxaan idin wadaa cashir aad u muhiimsan kaas oo aanan ahayn conversation balse uu yahay naxwada tenniska horey waxaan u soo qaadanay qaybtiisii hore present continuous tenniska koowaad ahaa ayaan soo qaadanay maanta waxaan geli doonaa isla asigii ayaan ku dhex jirnaa horey waxaan u soo qaadanay bilowgiisii hore oo present continuous tennis user for ayaan soo qaadanay formationka qaacidadiisu ahaa oo subjective plus s plus m plus r plus v plus ing plus objective ayaan soo qaadanay maanta waxaan arki doonaa interrogative-kiisa ayaan arki doonaa ee ku soo dhawaada dhageysi habboon asxaabta howsadee baa we form aan u sameynaa the interrogative qaab su'aaleedka of present continuous tenniska koowaad ah we form waan sameynaa by starting anigoo ka bilaabayna the sentence jumlada with either mid un oo SCMER ka mid ah according anigoo u tixraacayna to the subject ficil sameeyuhu examples tusaalayaal am I aniga talking to you adiga miyaan kula hadlayaa is ayaan gabadha la yiraahdo goowima waxay u socotaa to schoolku miyay u socotaa is he isaga taking wuxuu qaadanaya ablution weyso aan ku celiyo casharka howsadee baa we form aan u sameynaa the interrogative qaab su'aaleedka of present continuous tenniska koowaad ah we form waan sameynaa by starting anagoo ka bilaabayna the sentence jumlada with either midun SCMER ka mid ah according anigoo u tixraacayna to the subject ficil sameeyuhu examples tusaalayaal am I talking to you miyaan kula hadlayaa is ayaan going to school ayaama school bay u socotaa is he isaga taking ma wuxuu qaadanaya ablution weyso mar saddexaad aan ku xiliyo casharka howsadee baa we form aan u sameynaa the interrogative qaab su'aaleedka of present continuous tenniska koowaad ah we form waan sameynaa by starting anagoo ka bilaabayna the sentence jumlada with either mid SCMER ka mid ah according anigoo u tixraacayna to the subject ficil sameeyuhu examples tusaalayaal am I aniga talking to you miyaan kula hadlayaa is ayaan gabadha ayaan la yiraahdo goowima waxay u socotaa to schoolku miyay u socotaa